Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waa walaashiin Mulki Xasan Maxamed oo idin leh Allah subxaana wa tacaala caza wajalla inta xanuunsan ha caafiyo inta caafimaad qabtana Allah subxaana wa tacaala ha u ziyaadiyo. Waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan insha Allah. Alxamdulillah anigu waan fiicanahay, dhammaantiina waad salaamantihiin. Maanta waxaan idin wadaa mowduuc aad u qurux badan ina soo jiitay ka hadalkiisana aan aad ugu faraxsanahay. Mowduucaas oo ah waa maxay jacayl, balse midda kaleeta waa farqiga u dhaxeeya jacaylkii hore iyo jacaylka maanta jira. Waa maxay farqiga u dhaxeeya jacaylkii hore iyo jacaylka maanta jira? Waxaan ka jawaabeynaa su'aasha ah waa maxay jacayl? Jacaylku waa naxariis, jacaylku waa kalsooni, jacaylku waa ismaqal, jacaylku waa kala dambeyn, jacaylku waa naxariis, jacaylku waa dabacsanaan, u dhagaraaracsiin qof aad jeceshahay. Qofka aad jeceshahay waa qofka ixtiraamka aadka u ballaaran aad u hayso. Qofka aad jeceshahay waa qofka mar walba aad ku kalsoon tahay, marna kalsoonidiisana ay ka nusqansanayn. Qofka aad jeceshahay waa qofka mar walba inuu ku fahmayo aad dareensan tahay. Qofka aad jeceshahay waa qof hadalkiisa aad u weyn aad u dhageysata, aadna diyaar u tahay inuu kula hadlo intii uu asaga ka daalaya. Sida aan ognahay jacaylka maanta jira wuu ka dugan yahay jacaylkan. Waayo jacaylkan waa midka saxda ah ee labada qof ay isku qaadaan. Sidaas darteed maanta jacaylka jira ayaa wuxuu yahay waan ku arkay waan ku caanshaqay. Dabadeed haddii aad igu adkeysana wax culays ama wax ay cusri igu tahay malahan. Jacaylka maanta jira waa jacayl aniga aad iga yaabiyay. Dabcan idinka xitaa waxaa laga yaabaa inaad la yaabtaan. Sababtoo ah gabadha kuma kalsoona halka nin ay shukaansato ee boqolaalo nin ayaa isku wadaa. Kadaalika ninka ragga waa sidaas darteed markaa kalsooni darro aad u ballaaran ayaa ka dhex jirta dhalinyarada dhexdooda. Kalsoonidoodana aad ayay u yar tahay. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiisid oo dhahdid maxay ka wadaa gabadhan ereygan jacaylkii hore iyo jacaylkan farqiga u dhaxeeya waa maxay? Su'aalahaas inaad isweydiisaa laga yaabaa. Dabcan adiga waxaa laga yaabaa qof wanaagsan in aad xiriir la leedahay ama aad guursan rabtid ama aad jacayl la sameysay. Dabcan waa laga yaabaa. Laakiin midda saxda ayaa waxay tahay jacaylka maanta jira aad ayuu u yaab leeyahay. Waxayna iska tahayba wax iska ciyaar ah. Dadka xiriir way sameeyaan laakiin qofka sida dhabta ah aad u jeceshahay wax walba waad ugu dulqaadanaysaa. Waxa ay ku kala duwan yihiin ayaan sheegi doonaa insha Allah. Jacaylkii hore wuxuu ahaa jacayl aad la iskugu kalsoon yahay, jacayl la isku naxariisto, jacayl aad u ballaaran. Waxaa intaas sii dheer familka gabadha ee ka dhalatay iyo familka uu wiilka ka dhashay xitaa way isku yaqaaneen ayagoo wada sheekeysi iyo xiriir oo ka dhaxeeyo. Ayaa waxaa la dhihi jiray hebel heblaayo ayuu jecel yahay, heblaayo hebel ayaa jeceshahay. Waa barnaamij aad wuxuu u ahaa jacaylka aad loo tixgelin jiray. Maanta oo la leeyahay ilbaxnimadii ayaa siyaaday waxa ay romantiga bilowday barnaamijyo noocaas la leeyahay. Kii shalay ma gaari karo kan maanta. Xishood ayaa ku larnaa wiilka gabadha wuu ka xishoon jiray, kadaalika gabadha wiilka way ka xishoon jirtay. Maanta midka jira waa mid sun lagu qasayo, waa mid lagu dilaya. Kalsoonidaada heerkaas haday gaarto qof kasta oo jacaylkaas hore u jiray aqoonsan ama wax ka og yahay maanta jacaylka jira inuu run ahaynin. Labada qof waxay isla joogaan ama ay iskula nool yihiin waxay tahay aan isku daneysano. Ninkii naagta markay isguursadaan oo kaleeta aan isku daneysano. Haddii awlaad Ilaahay kala siiyo kala dambeyn iyo maxaa la dhahayo wax sidaas u sii weyn ma jirtaba. Haddii la isku dhaco ilmahaas dartood wax walba looma sameynayo. Qof walbaba dantiisa buu fiirsanayaa wuxuu leeyahay ani adiga intaas aan kugu dhibsaday haye sii socono waa sii soconayo.
marka jaceylka saxda ah ma ahan midkaas. Maalin dhaweyt waxaa arkay wiil aa ii yimaada wuxuu dhahay walaashay waxaa rabaa gabar ay isku kacsanaayeen inaan dhexdhexaadis sidaa rabaa uu dhahay. Kadib waa dhexdhexaadiyey wax badan oo igu soo noqnoqday markii ay heshiiyeen ayadoo waxba aana dhihin wuxuu idhahay la'aanteed ma noolaan kara indhaha saasaan beeli rabaa intaan ka bixi rabaaye mar uun ila heshiisii. Laakiin markii aan dhexdhexaadiyey ee aan heshiisiyey kadib ayadoo waxba aana dhihin ee sheekadoodii iska caadi tahay ayuu iska baxay. Hadda haddii ay online tahay xitaa lama hadlaayo wuu fiirinaa waxay soo dhigta bis maxaa la dhahay lama hadlaayo. Marka jaceylka saxda ah waa kan qofka kale markuu qalad kaa gala aad u saamaxda, aad iska cafisa, aad u dulqaadata qofka aad jeceshahay si kasta ha u ekaado, yacni aadan ixtiraamin, aadan tixgelinin. Jaceylka saxda ah midaas ma ahan. Waxaan rajaynayaa dad aad u fara badan oo i dhageysanaya inay kasoo falcelin doonaan xagga commentiga noogu reebi doonaan waxay ka aaminsan yihiin jaceylka maanta jira. Aniga kolba waxaan ka aaminsanahay jaceylka maanta jira inuu yahay ma isku danaysanaa haddii la isguursado waa la isguursaday inta ka dhaxayso yacni ninkaana dan uu wataa gabadhaana dan ay wadataa waa la kala socdaa. Haddii calaf isku ka imaado waa ku arka waa ku caansho khalay waa. Marka waxaan rajaynayaa xagga commentiga inaad nooga soo reebi doontaan wixii fikir aad ka aaminsan tihiin jaceylka maanta jira iyo jaceylka hore iyo sidii maxaa la dhahayay hasaabihii hore oo ahaan jiray. Barnaamij ayaan kasoo sameyn doonaa hasaabihii hore iyo hasaabahan farqiga u dhaxeeya insha Allah. Laakiin hal mid ayaa jirto, jaceylka saxda ah waa midka guurka dabadiis imaado. Waayo maanta jaceylka jira waxaa ka wanaagsanba iyadoo la is aqoonin in la isguursado oo jaceylka uu imaado guurka gadaashiis. Waxaan rajaynayaa inaad ku qanci doontaan insha Allah. Inta nala joogto hore waxaan leeyahay nala sii jooga, inta nagu cusubna soo dhawaada mar kale iyo mar kale.